بسم الله الرحمن الرحيم waxaa jirtay anigiyo xildhibaan maxamed abiib waxaan tagnay xarunta CID-da waana booqanay markii aanu hawsheedii soo dhameysanay ayaa waxa naga hor yimi taliyaha bilayska dabagale iyo askar la socota dabeeto si halhaleela uunbu markiiba maxamed abiib daf u yidhi dabeet isagoo tahdiid iyo hanjabaad isugu daraya waxa hadalladiisii aan ka xasuustaa inuu ku lahaa shaar kuleeg baan ku xidhi waad kibrisantahay Somaliland ba ma tihid cadowga Somaliland baatay dhowr jeer baan isku dayay inaan la hadlo oo ku iraahdo taliye de xayndaabkii oo ka gudubsan tahay mas'uuliyadna sidani maaha dabeeto dhowr jeer noo dhagno mu dhigin markii dambe waxaan isku dayay inaan xakameeyo maxamed abiib oo ila socday oo ku dhaawaa adigu hadaba hadline u kaadi laakiin intaan arkayay mas'uuliyad taliye ciidan si uu dhaqmi lahayo kale ma ahayn anuu muddo 20 sano in ku dhuubaan garsoor ku soo jiray intaasoo taliye bilis ba oo kala duwan baan la soo shaqeynay ragii badankoodii way dhinteen Allah u naxariisto weligay wax saa u dhaqmaya lama kulmin maxaa xarunta CID-da ku soo galiyay buu ma soo gali kartid xarunta CID-du waxa weeye waa xarun dadweynaha u shaqeysa oo qaran ku leeyahay meel qof loo diidi karaa qofna laga xayiri karo qofna loo ogolaan karo maaha waa meel ummadu wada leedahay taliyaha dabagale ka horna waanu gali jirnay dabadiina waanu galeynaa inta joogna waa la galaya meeshan waa meel qaranku wada leeyahay ummadu wada leedahay laakiin tahdiid qarul caadiya oo aan mas'uuliyadi ku dheehnayn ayaa markii aan goobjoog sidaan ka ahaa oo taliyaha ficiladiisii ficilo lagu tilmaami karo ficilo mas'uul ma ahayn anu goobjoog waxyaabahan ka ahaa bay ahayd aad baan ugu xumaaday wallahi runtiya waayo sabab mas'uuliyad iyo hoggaanka ciidanka bilisku markuu saa u dhaqmo xildhibaanadii xasaanada lahaad saa loogu dhex tahdiido su'aalahan is weydiinaya waxa kamid ah dadkii shacabka ahaa talow waxaan isleeyahay in Ilaahay uu naxariisto sharci ahaan maxaa ka dhalanaya gareeqan hanjabaada goobjoog ka ahayd taliyuhu u geystay xildhibaan xaadi wallahi hanjabaada taliyuhu u geystay sharci ahaan mas'uuliyad darro weynna way ka dhalanaysaa waxa kale oo ka dhalan kara fal kasto oo ninka ku dhaca ciidda loo raaci kara wax noqonaysa taliyaha waayo wuxuu ku yiri shaar kuleeg baan ku xidhi doonaa anigu shaarka isaga inay tahay la weydiiyo muxuu uga jeedaa shaar kuleeg uu leeyahay xildhibaanka xasaanada la waan ku xidhaya isagay tahay inuu faahfaahiyo bulshada u faahfaahiyo